kulanti habboon daawadayaal dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna idiin soo gaarayo halkani waa Somali Freedom aniguna waa Caydruus Iimaan ku soo dhawaada muuqaal kale oo ka mid ah taxanayaasha muuqaalada joogtada ah iyo xogaha aanu idiin soo gudbino alaaba mawduuc gaar ah oo aanu soo xulno inaanu idiin soo gudbino ayaa halkan ku soo bandhignaa waxyaabaha aanu haatan doonayno inaan idiin soo gudbino waxaa ka mid noqon doona muslimiinta waa dadka ugu badan ee haysta qanaacada nolosha sahan guud oo la sameeyay iyo cilmi baaris arintan la xiriirta ayaa dabcan si toos ah u kala dhigtay sida ka muuqata nolosha dadyowga diimaha kala duwan haysta lambarka ugu horeeyana waxaa galay muslimiinta oo la xaqiijiyay in noloshoodu inta ugu badan ama 100% la oran karo way ku qanacsan yihiin qanaaco nololeed ayay dabcan haystaan iyaga iyo qoysaskooda muslimiintu waxa ay yihiin dadka ugu qanacsanaanta badan nolosha waayo waxa ay la nool yihiin kalinimada eebe marka lala barbar dhigo diimaha kale daraasad cusub oo la soo saaray ayaa daaha ka rogtay sida laga soo xigtay Daily Mail oo arinta tan dabcan soo bandhigtay daraasadu waxay iftiiminaysaa xiriirka weyn oo ka dhaxeeya rumaynta kalinimada eebe iyo qanaacada nolosha ayuu yiri Dr. Laura Maria oo dabcan ahaa ninka qoray cilmi baaristan oo ka tirsan jaamacadda Mannheim oo u sheegay dabcan warbaahinta kadib marka daraasada la soo gabagabeeyay dad badan ayaa qirsan cilmi baaristan inay tahay mid dhab ah oo muslimiinta inta badan iyagu nolosha iyo sidoo kale jiritaanka eebe ayay kulansadeen waana mid ay ku qanacsan yihiin rumaynta eebe kaliya ah oo aan diin kale iyo wax kale la barbardhigaynin taasoo dadka qaybtood ay rumaysan yihiin inay tahay waxa u sahlay ama dabcan u fududeeyay inay helaan qanaacada nolosha halbeega inta badan dadku waxay ku qeexaan marka qofka muslimka ah uu jiritaanka eebe rumeeyo waxa laga reebayna uu ka tigtoonaado ama uu joojiyo waxa la faray ee wanaagana dabcan uu sameeyo in inta badan noloshiisu ay noqonayso mid jaangoon oo farxad iyo sidoo kale dabcan bilaa murug ah uu ku qaadan karo dadka qaar waxa ay leeyihiin meel uusan eebe weyne kaa rabin haddii aad ka fogaato meel uu kaa rabana lagu arko waxay ka dhigan tahay inaad haysato dabcan jid toosan oo quman oo kugu hagi kara baraaraha nolosha daraasada ay soo jeediyeen khubarada ka tirsan jaamacadda Mannheim ayay ku ogaanayeen xiriirka qofka qanaacadiisa iyo rumaynta kalinimada eebe ka dhaxaysa waxaana daraasadan la xaqiijiyay in ay ka qayb qaateen ku dhawaad 67,000 oo arday oo ka soo kala jeeda dalal kala duwan oo dunida ah kuwaas oo isugu tagay ka qaybgalka cilmi baaristan sidoo kalena dabcan su'aalo kala duwan oo guddigii sameeyay cilmi baaristan halbeeg u ahaana lagu ogaaday sida ka muuqata muslimiinta ayaa laga dhex ogaaday daraasada inay xiriir aad u weyn la leeyihiin wax ka baxsan dabcan qudradooda sida lagu yiri cilmi baaris cusub oo ay sameysay American Psychological Association oo dabcan qudheeda arintan door ku lahayd wax dhowna kala socotay maadaama hawshatan ay ahayd mid si wada jir ah loo talantaalinayay kaalin quman oo habboon ka ciyaartay sida ay dabcan muujinayso muslimiinta waxa ku soo xigsaday dabcan kristaanka oo isugu jira dabcan catholic iyo sidoo kale dabcan qolyo kale kuwaas oo la nool dabcan dareenka rumaynta kalinimada eebe waxaana ku sii xiga dabcan buddhistaha iyo sidoo kale hinduuga oo iyaguna kaalmaha kale soo xigsaday xagga qanaacada iyo sidoo kale dabcan nolosha ay markaasi haystaan inaad moodo inay qanaaco quruxsan ku nool yihiin gabigoodba sidoo kale xagga dambe waxaa ku jira alladiidka ayaa ah kuwa ugu hooseeya ama dabcan kuwa ugu dambeeya kuwaas oo aan gabi ahaanba haysan qanaaco nololeed maadaama aysan rumaysnayn kalinimada eebe waana tan geysay lambarka ugu hooseeya oo haatan ay ku sugan yihiin sida dad badan oo aqoon-yahano ah oo cilmi baaristan ku jira qaybtood warbaahintu ay si kali ah u wareysatay iyo si guudba dhammaantood waxay xaqiijiyeen dhab ahaanshiyaha iyo jiritaanka halbeega nololeed iyo in muslimiintu ay kaalinta ugu horeysa ku jiraan xagga qanaacada iyo sidoo kale dabcan ku tiirsanaanta eebe taasoo aqoon-yahano badan oo madal joog ka ahaa daraasadan ay yaqiinsadeen inay muslimiintu mudan yihiin inay ku jiraan kaalinta ugu horeysa qarnigan 21aadna marka aynu eegno waxaa jira dabcan cilmi baarisyo dhanka diimaha ah oo inta badan qeexaysa jiritaanka eebe iyo sidoo kale sida bulshooyinka dunida
guudkeeda dul saaran ay ugu nool yihiin qanaacada nolosha inta badanna kaalmaha ugu horeeya waxaa inta badan fadhiista oo hantiya muslimiinta oo iyaga kulansada dabciyo kala duwan oo diintooda ay farayso iyo ku qanacsanaanta nolosha markaa iyaga ay ku jiraan iyo rumaynta eebaha weyn ee koonka kan isaga abuuray dadkana abuuray. warbixinteenii gaarka ahayd ee sahanka nolosha oo aanu ku soo qaadanay muslimiinta inay yihiin dadka ugu badan ee haysta qanaacada nolosha halka kan ayaan ku soo koobaynaa. waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. dhanka kaamirada waxaa iga caawiyey Fuaad Cabdirasaaq Gurey iyo sidoo kale dabcan Maxamed Xalliye oo si wada jir ah dabcan muuqbaahintan door saliima ka ciyaaray. aniguna xagga soo jeedinta ayaan ahaa. waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. dhammaanteen iyadoo midaysan nabadiino.